الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيك تاريخ تميكو بالسيدة لما ذكون لباتي لما ذا ما يبقى بصومي شركي جولا وزيرة أو شركة دومياي مدحوينها مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين شركة سامي لينكو هذا لي دور أرمود لينكو هذا لي مدحوينها ما يبقى كور بحيه سفركي وسكديري إثيوبيا وخاصة دولة ديغانكا صومالي إثيوبيا ميلسوس كلمي مدحوينها دولة ديغانكا صومالي إثيوبيا iyo odayaalka dhaqanka iyo bulshada shalduun marka madaxweynaha mayba nin sheegay intii la ka heli saddex qodob oo muhiimsan safarshay u sakaderi dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia sadiidas qodob mayba ku mid haayana koow la dagaalanka al-shabaab intii la xoojiyo isugista amaanka iyo wacyigelinta bulshada intii la hoojiyo wada hadalka lamada madaxweyne qodobka koowaad yahay qodobka lamaad mayba wada hadalena ka heliyana lamada madaxweyne isdhaxgalka bulshada intiina eedlin xooji qodobka saddexaadna mayba haayeen arimaha waxbarashada marka madaxweynaha mayba nin sheegay intii safayl meel islahan ka dhawaay Soomaalida deegaankaas degan intii eedan dhawaayeen madaxdiyo shacabsho odayaalka dhaqanka soo la kulmi bulshada shalduun beelasha shalduun soo la kulmi dhalinyarada la kulmi ya madaxweynaha nin ku warbixi marka iskaashigaas sadiidas qodob ku qoobnay ya meel raashil islameel dhikay lamada madaxweyne islameel dhikeen وخاصة حدود لماذا حدود أنتي إدلين إلالي إلا دجالين كأرجحسدنا على الشباب أنتي إدلين حوجيو سيدي لينكو إرب ترى هاي دجانا دولة دجان الصومالي دي توبي إيو كونفور قلبت سيدي لينكو إرب ترى هاي يا لماذا مدحويني كهليين مدحوينها ما يبان ما هنجاي مدحوينها دولة دجان الصومالي دي توبي الشعبشة سووا سفيل الهندواي وسيو وفدي مركز وصل السعودي حكومة وشعبا أيضا كما عندنا غير مدحوينها دتكاس Soomaalida wala nyoogana meelo ka noolin may kala warbixin lagu dhugan siday wasiirka amniga guud ahaan amniga koonfur galbeed markasta nimanka nabadiidka iska dayayaan antiyo la dagaalamaan amniga antiyo qalgal galiyaan yaa lagu dhugan siday warbixin wasiirka amniga marka deegaanada koonfur galbeed guud ahaan anti amni soo eedan faylahay inkastoo wal yar isku jiraan oo yasuubiyaan nimanka nabadiidka intii dadka iyo markastaba argagixiyaan ama obsigiliyaan iyo iska dayayaan marka wasiirka amniga mayba hajeediyay inkastoo amniga safaylinka dheeraday mayba hajeediyay intii markastaba shacabka iyo xukuumadda isku gacansadaan amniga ma lan shakhsi ama wasiirka amniga shariis miintala intii la wada shaqay laamo amniga iyo shacabka iyo kulli isla wada shaqeeyaan ya wasiirka amniga hajeedi marka amniga guud ahaan wasiirada eedan ka dheeradan lankastana may bahajeediyay intii amniga koonfur galbeed lankasta amaan shay ka jara horumar shay ka jara mustaqbal shay ka jara intii la wada shaqeey wasiirka shayis linka fiirsana intii lankastaba wasiir nagadoy ama xilwaan nagadoy ama shacab nagadoy intii la isku wada shaqeeyo culimada hadda magaalada ka noolaan oo degan masaajide kulli intii amniga la wada shaqeeyo arrimo bulshada kulli qaybasho shal duwan intii amniga ku shaqeeyaan oo laamo amniga markastaba garab siiyaan oo la shaqeeyaan idan ma sinin wasiirada iyo wasiirka amniga warbixinta guud oo ku dhuunsani inkastoo mararka qaar al-shabaab soo biyayaan weerar iska dayayaan wala tuurayaan ama bambo tuurayaan markastana mayba la ka dadaal faday intii oo lagu feejignaada nimankaas nabadiidka idan ma sinin wasiirka amniga may kala warbixin lagu dhuunsaday wasiirka qorsheynta oo uu la kulamay wufuuda kala kulamay koonfur galbeed isugu kaalado wasiirka amniga iyo wasiirada haweenka iyo wasiirka maareynta iyo masiibooyinka shirkaaso hay'ado linku ku hadalay unsom linku ku hadalay arimaha bini'aadanimada incorporate qaybta amniga iyo qaybta cadaaladda iyo haweenka doorka iyo kaleyn siyaasadda iyo amniga linku ku hadalay marka wasiirka qorsheynta may baan sheegay intii hay'ado afgoradeen intii amniga maadaama بريالكان الشباب ورديو إذن بدلن أنتي أمني إدلين حوجي أو لكو شقي هي دون عالمي جن أنتي كل شقيان إيو عدالة أنتي لكو شقي إيو قيبت أمني جن كالن يوكو قاضن لنا حنرابت أما بلانت كالن يوكو قاضن سيديو أمني جن كو قيب قال لهاين أما
may la doorshoon ku qaad lahaayeen may kala warbixin ku dhuunsay wasiirka arrimaha gudaha isugo may la raayus warbixin yarnoosi wala weyn arantiye oo intii markastaba ka dadaalo wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiin intii la suubi dadka beelogaas meel degaayaan markastaba dib u heshiisiin la suubi oo la ka dadaalo sidii oo iska dhaxgal lahaayeen arrimaha horumarinta iyo deegaankaas horumarinta leen ku shaqeeyay lahaay iyo warbixin ku dhuunsaday shirka golaha wasiirada geeka intaas ku koobanay idan ma siin wasiirada dhamaantiyo madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta garan ma nagaana wabillahi tawfiiq shirki nuxurshay intaas yahay